Assalaamu calaykum. Si aad u noqoto qof awood badan waa inaad ku dhex leedahay saameyn weyn dadka dhexdooda. Forbes waxay daabacday liis ka kooban shakhsiyaadka ugu saameynta badan adduunka sanadka 2020-ka. Liiskan waxaa ka soo muuqday siyaasiyiin, kuwa leh meherado ganacsi. Haddaba waa kuwan 10 qof ee ugu saameynta badan adduunka sanadka 2020-ka. Warbixintan waxaan ka soo xigtay jariiradda Forbes. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Nambarka koowaad, Vladimir Putin. Madaxweynaha dalka Ruushka oo 63 jir ayaa kaalinta koowaad kaga soo muuqday liiskan ay samaysay jariiradda Forbes. Vladimir Putin waa madaxweynaha sharciga ee dalka Ruushka. Putin waxa uu madaxweynaha tan iyo 2012kii. Ka hor waqtigaas waxa uu 2 jeer soo noqday ra'iisul wasaaraha waddanka, waana intii u dhaxaysay 1999kii ilaa 2000 iyo mar labaad uu noqday 2008 ilaa 2012kii. Waxa uu mar noqday gudoomiyaha xisbiga haatan talada haya ee United Russia intii u dhaxaysay 1970 ilaa 1975. Putin waxa uu dhiganayay jaamacadda St Petersburg State halkaas oo uu ku bartay culuumta sharciga. Waxa uu howlgab noqday sanadii 1991 isagoo gaashanle sare ah si uu siyaasadda ugu soo noqdo mar labaad. Sanadii 1996 Putin waxa uu u dhaqaaqay magaalada Moscow si uu ugu biiro maamulkii madaxweyne Boris Yeltsin. Waxa uu ku guuleystay inuu si dhaqso leh kor ugu kaco jagooyinka uu qabanayo. Waxa uu noqday kusimaha madaxweynaha sanadii 1999kii. Nambarka labaad, Donald Trump. Donald Trump waa ninka iskiis isu magacaabay ahna madaxweynaha 45aad ee Mareykanka. Waxa uu ku dhashay sanadii 1946 magaalada Guanis ee Mareykanka. Waxa uu ka dhashay mid ka mid ah qoysaska ugu taajirsanaa waqtigaas. Waxa uu bilaabay inuu kala shaqeeyo aabihiisa meheradihiisa ganacsiga laga soo bilaabo da'diisii hore ee yaraanta. Waxa uu wax badan ka bartay hantima guurtada aabihiisa. Markii dambena waxa uu Manhattan Real Estate ka bilaabay maalgashi. Trump runtii waa kii ugu horreeyay taariikhda Mareykanka isagoo bilyaneer ah haddana noqda madaxweyne. Si kastaba ha ahaatee waxa uu caddeeyay Trump inuu ku wareejin doono xukunka ganacsiga walaalihiisa kale ah, Eric Trump iyo Donald Trump Jr. Laga soo bilaabo sanadii 2016 qiimaha saafiga Trump waxa uu dhammaa $3.9 bilyan. Nambarka saddexaad, Angela Merkel. Angela Merkel waxay kaalinta saddexaad ka gashay liiskan ay samaysay Forbes. Waa haweeneyda ugu awoodda badan adduunka sanadkan 2020ka. Angela waxay dhalatay 1954. Waxay jagada sare ugu fadhidaa dalka Jarmalka. Xilal badan ayay soo qabatay tan iyo 2005. Intii lagu gudi jiray kacdoonadii 1989kii Merkel waxa ay gashay siyaasadda. Waxay sidoo kale ahayd ku-xigeenka mucaaradka dowladda Jarmalka bariga 1990kii. Sanadii 1991 Merkel waxaa loo doortay wasiirka haweenka iyo dhalinyarada. 4 sano kadib sanadii 1994 waxay noqotay wasiirka deegaanka. Sanadii 1998 guuldaradii Kohl kadib Merkel waxay noqotay xogeyaha guud ee xisbiga CDU. Sanadii 2007 Merkel waxay noqotay haweeneydii labaad ee noqotay madaxweynaha golaha Yurub. Sidoo kale waxay ahayd gudoomiyaha G8. Dhowaan waxa ay furtay xuduudaha Jarmalka. Taasi waxay saamaxaysaa in ka badan 1 milyan oo muhaajiriin ah ka yimaanaya Suuriya iyo wadamada muslimiinta ay soo galaan Yurub. Ficilkaas samafalka waxay ku kasbatay abaalmarino badan. Nambarka afaraad, Pope Francis. Waxa uu ku dhashay waddanka Argentina sanadii 1936. Isaga ayaa ah baadariga hadda jira ee kaniisadda Roman Catholic. Waxa uu noqday Pope-ka 266 sanadii 2013kii. Pope Francis ayaa bedelay Pope-kii ka horreeyay ee Bombetric kadib markii uu iscasilay. Nambarka shanaad, Xi Jinping. Waxa uu ku dhashay sanadii 1953 magaalada Beijing ee waddanka China. Xi Jinping waa madaxweynaha talada haya ee Shiinaha. Sidoo kale waa xoghayaha guud ee xisbiga Shuuciga ee Shiinaha. Laga soo bilaabo sanadii 1999 ilaa 2000, Xi waxa uu noqday gudoomiyaha Fujin. Xi waxa uu hogaamiyay olole ka dhan ah musuqmaasuqa. Waa hogaamiye muhiim ah waxa uu noqday mid ka mid ah xukuumadaha Shiinaha ee ugu saameynta badan adduunka. Xi waxa uu bedelay fikirka Shiinaha ee muxaafidka isagoo adeegsanaya dib u habeen. Intii madaxweyne Xi uu xilka qabtay Shiinaha waxay ku guuleysteen inay maalgelin ballaaran adduunka ay ku sameeyaan. kulankiisii uu la yeeshay hogaamiyaasha Mareykanka iyo UK waxay u horseetay heshiisyo ganacsi oo ku kacaya $46 bilyan. Nambarka 6, Bill Gates.
Bill Gates oo ah bilyaneer iskiiska isku soo saaray waxa uu ku dhashay sanadii 1955 magaalada Seattle ee Mareykanka. Waa nin ganacsade ah, deeq bixiye, maalgeliye iyo barnaamij yaqaan. Sanadii 1975 waxay si wadajir ah u aasaaseen isaga iyo Powell Allen shirkadda Microsoft oo ah shirkadda ugu weyn ee soo saarta barnaamijyada ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada. Bill Gates waxa uu hadda yahay qofka labaad ee dunida ugu qanisan, asagoo haysta lacag dhan 78.3 bilyan oo dollar. Gates waa nin aad u gacan furan oo waxa uu dhowr jeer bixiyay lacag oo ugu deeqay wadamo ka tirsan Afrika iyo Asia. Sidoo kale waxa uu sheegay haddii uu dhinto in hantidiisa badankeeda la sadaqeyn doono. Nambarka 7, Larry Page. Waxa uu dhashay sanadii 1973. Larry Page waa maamulaha guud ee shirkadda Alphabet oo ah shirkadda ay hoos imaado shirkadda Google. Waxa uu ku dhashay gobolka California, waa aqoonyahan kombiyuutareed iyo ganacsade xagga internetka. Larry Page oo uu weheliyo Sergey Brin waxay aasaaseen shirkadda Google sanadii 1998. Nambarka 8, David Cameron. David Cameron waxa uu soo noqday ra'iisul wasaaraha boqortooyada Ingiriiska 6 sano. Waxa uu ku dhashay sanadii 1966 magaalada London. Kadib markii uu shaqeynayay 6 sano waxa uu iska casilay jagada ra'iisul wasaaraha bishii Luulyo ee sanadkan 2020. Kadib markii boqortooyada Ingiriiska ay u codeysay inay isaga baxdo midowga Yurub. Waxa uu noqday hogaamiyaha xisbiga Conservative Party 2005 ilaa uu ka baxayay waxa uu ahaa hogaamiyaha xisbigaas. Cameron waxa uu ahaa nin taageersan siyaasadda xorta xagga dhaqaalaha iyo xagga bulshadaba. Nambarka 9, Narendra Modi. Waxa uu 1950 ku dhashay gobolka Gujarat ee India. Modi waa ra'iisul wasaaraha hadda ee India. Waxa uu qabtay jagada ra'iisul wasaaraha sanadii 2014. Modi waa hogaamiyaha xisbiga Bharat Janata Party oo loo soo gaabiyay BJP. Waxa uu sidoo kale noqday wasiirka Gujarat. Labadii sano uu ra'iisul wasaaraha Modi waxa uu cadeeyay inuu si fiican wax u qabtay. Maamulkiisana waxa uu bilaabay qorshayaal dib u habeyn ah iyo casriyeyn kaabiyaasha dhaqaalaha India. Sidoo kale Modi waxa uu keenay isbedel dhanka caafimaadka iyo fayadhowrka. Isla mar ahaantaana waxa uu hagaajiyay xiriirka caalamiga. Waxa uu booqashooyin la sameeyay madaxweynaha Mareykanka iyo kan Shiinaha. Sanadkiisii ugu horreeyay uu ra'iisul wasaaraha Hindiya waxay xaqiijisay 7.4% GDP koror ah. Waxa uu leeyahay rikoorka waxqabadka raadka leh ee horumarka gaarsiiyay waddankaas India iyo Gujarat. Nambarka 10 ee ugu dambeeya, Mark Zuckerberg. Mark Elliot Zuckerberg waxa uu dhashay sanadii 1984. Waa nin ganacsade ah dhanka internetka iyo barnaamijyada kombiyuutarka. Waxa uu ku dhashay New York waxaana loo yaqaanaa aasaasaha Facebook-ga, haddana ah maamulaha iyo gudoomiyaha shirkadda Facebook. Laga soo bilaabo May 2020, qiimaha saafiga ee Mark waxa lagu qiyaasay 63.3 milyan oo dollar. Jariiradda Forbes waxay ku qiimaysay inuu yahay qofka shanaad ee ugu taajirsan adduunka. Zuckerberg markii uu yaraa waxa uu aad u muujiyay xiisaha uu u leeyahay abuurista geemiyada iyo la shaqaynta kombiyuutarada. Tiina waa uu ku guuleystay maanta waxa uu leeyahay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka xagga internetka.